warbixin ka hadlaysa guushii doorashada Soomaaliya oo ka gaaray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba caqabadaha ka hor iman kara ayaa TV-ga Somali Cable Studio-giisa magaalada Nairobi waxa idin diyaariyay anoo Kowsar Cabdinuur Aadan iyo waliba Cabduqaadir Jiijile waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala 8 Febraayo 2017 waa maalin u calaamaysan hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliyeed dareenka shacabka Soomaaliyeed waa markii ugu horeysay oo 27 sano kadib uu dalka Soomaaliya ku guuleystay inuu helo madaxweyne haysta taageero iyo ribitaan shacab oo xoog badan sida darteed madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu waxa horyaala gudashada waajibaad qaran oo adag badi dadweynaha Soomaaliyeed waxay ka filayeen maamulkiisa siyaasadeed oo muddo 6 bilood oo ku kasbaday raaligelinta muwaadiniin Soomaaliyeed kuna sameeyay waxqabad taabagalay xilligii uu ra'iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarka ahayd haddaba madaxweyne Farmaajo maanta waxa horyaala 4 sano iyo xilka mas'uuliyadda ugu sareysa dalka oo inuu yahay madaxweynaha laga dhowraya ka shaqeynta amni taam horumar taabagalay iyo midnimo Soomaaliyeed dad badan waxa ay leeyihiin waa bilow wanaagsan sida uu madaxweynaha cusub Farmaajo uu u abaaray ambaqaadkiisa hogaamineed waayo waxa wada tashiyo badan oo muhiim isla markaasna la xiriira wada shaqeyn qaran oo la yeeshay dhammaan musharaxiintii xilka madaxweynaha kula tartamaysay sidoo kale madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalalka wakiilada caalamka iyo waliba beesha caalamka xubno kamid oo dhamaantood uu ka qayb galiyay talo bixinta iyo waliba habka wada shaqeynta siyaasadeed ee dhexmari doonta Farmaajo waa madaxweyne haysta jacaylka dadkiisa waxa uuna kaga faa'iideysan karaa dawlad ahaan in uu helo wada shaqeynta shacabka oo dhameystiran taasi oo ayna helin badi madaxdii uga horeysay hoggaanka qaranka dhinaca kale waa mas'uul la saaxiiba shacabkiisa guud ahaan waxayna u sahlaysaa in uu noqdo xog ogaal si dhaba uga jawaabo baahiyaha bulshada oo ay dhici jirtay in raggii isaga ka horeeyay ayna ka warhaynin si uu madaxweynaha cusub ugu guuleysto rajada shacabka isla markaasina uu sameeyo siyaasad wanaagsan oo ku dhisan xidhiidh iyo iskaashi caalami waxa mahuraan in madaxweynuhu si haboon uga soo fikiro hanaanka dhismaha xukuumaddiisa sida badil aaminsan yahay qaab dhismeedka xukuumadda ayaa furo u noqon karta in dawladda Farmaajo ay ka dabaalato himilada shacabka beesha caalamka waa kaalin muhiim u dawladnimada Soomaaliya haddana waa mid ka qaybgelinteeda u baahan in la xakameeyo si ay dawladda Soomaaliya u yeelato micno iyo awood dawladnimo oo buuxda si la mid waa in dalalka dariska ay xukuumadda Farmaajo la yeelato cilaaqaad siyaasadeed oo la mid kuwa ay dalalka dunida yeesheen laakiin waa inay ka feejignaato faragelin dadban iyo tan tooska ee curyaaminaysa horu socodka dawladnimada Soomaaliya iyo gaarista mustaqbal wacan oo hantiyaan ummadda Soomaaliyeed arrimahaas iyo kuwa badan oo la mid waxa ay ka mid yihiin sababta guusha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha cusub looga dabaaldegay dhammaan qaybaha dalka Soomaaliya xitaa qaxootiga Soomaalida ee kala jooga dunida ay ugu damaashadeen guushiisa dalal badan oo ay ku nool yihiin Soomaali fara badan sida Kenya, Koonfur Afrika, Uganda, Zambia, Turkey, USA, Ingiriiska, Hindiya, Pakistan, Jarmal iyo waliba wadamo badan oo caalamka kamid si weyn looga dareemay guushiisa isla markaasna loogu dabaaldegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoona dadkaasi ay u direen dhamaantood duco iyo waliba hambalyo ay isku raacinayeen madaxweynaha cusub kama marna in mahad celin iyo bogaadin uu hantiyay madaxweynihii isaga ka horeeyay ee aan wali xilka wareejin Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay hogaamiye soo qabtay shaqooyin badan oo muhiim isla markaasna si karaamo leh ugu tanaasulay tartankii doorashada wareegii saddexaad oo uu la yeelan lahaa madaxweynaha guusha hantiyay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan rabaa inaan halkaan uga hambalyeeyo walaalkay Maxamed Farmaajo oo noqonaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay hambalyo
al-shabaab oo kamid ah caqabadaha ugu waaweyn ee gudaha dalka ka jira waxaa muhiim ah in dowladda farmaajo ay ka yeelato siyaasad cad oo mar walba lagu qutaminayo danaha guud ee qarannimada Soomaaliya. Haddii ay suuragal tahay in lala dagaalamo al-shabaab waxaa ka wanaagsan in la wada hadlo, waayo mar walba dhimashada iyo dhaawaca waxa uu soo gaarayaa dhalinyarada Soomaaliyeed. Haddaba himilada iyo rajada shacabka Soomaaliyeed ayaa u muuqda kuwa hantiyay dowlad wanaagsan.